Maxaa dadka ka farxiya? Waa maxayse farqiga u dhexeeya dadka faraxsan iyo dadka murugaysan? Su'aashaas jawaabteedu way fududahay. Dadka faraxsan iyo dadka murugaysan waxay leeyihiin caadooyin kala duwan, waxay u dhaqmaan oo u fikiraan si kala duwan. Muhiim maaha haddii aad taajir tahay ama faqiir tahay, haddii aad wadato gaari qaali ah ama mooto, haddii aad qurux badan tahay ama aad fool xun tahay, haddii aad laandheere tahay, iyo haddii aad laangaab tahayba, waxaad noqon kartaa mid faraxsan ama mid murugaysan. Waxaan filayaa intaasi tahay war wanaagsan. Sababtoo ah waxay ka dhigan tahay in farxaddaada ay ku jirto adiga gacantaada. Haddii aad rabto inaad faraxsanaato, si fudud ugu dhaqan in badan oo ka mid ah caadooyinka soo socda noloshaada. Kow, noqo qof yididiilo wanaagsan leh. La kulanka xaaladaha adag iyo in lala tacaalo dhibaatooyinka waa qayb nolosha ka mid ah ee maaha mid adiga uun kugu kooban. Mar walba waxaad isku dayi kartaa inaad u hesho xal xaalad kasta iyo marxalad walba ood ku jirto, waadna beddeli kartaa qaabka aad u fikirayso. Dareenka wanaagsani wuxuu dhiirigeliyaa dareenka kalsoonida, wuxuuna kuu oggolaanayaa inaad xiriir wanaagsan la yeelato dadka kale. Dareenka wanaagsani wuxuu sidoo kale ku siinayaa dhiirigelinta isbeddelka nolosha muddada dheer iyo muddada gaabanba. Markaa iska daa fikirkaaga xun oo baro inaad u aragto dhibaatooyinka caqabado iyo fursado. Halkii aad ka fikiri lahayd waxa aan suurtogal ahayn, ka fikir waxa suurtogal ah iyo sida aad u hirgelin lahayd. 2. Diiradda saar waxaad xakamayn karto. Haddaba dad badan ayaa ka walwala waxyaabo ka baxsan awooddooda. Hadday tahay jirro daciif ah, duufaan masiibo ah, ama suuqa shaqada oo aan degganayn. Fikirka noocan oo kale ah ayaa wiiqi doona tamartaada iyo dareenka farxaddaada. Marka xigta oo aad aragto inaad sidan u fikirayso, u beddel fikradahaaga waxyaabo aad xakamayn karto oo tallaabo qaado intii aad dhibane u noqon lahayd dhacdooyinka. 3. Baro inaad aqbasho naftaada. Aqbalaadda naftaada waxay la macno tahay inaad ku qanacsan tahay qofka aad tahay. Haddii aad si joogto ah naftaada ula barbar dhigto kuwa kale, ama aad diiradda saarto cilladahaaga, waxay shaki gelin doontaa aragtida aad ka qabto naftaada iyo kartidaada. Xusuusnow, dhammaanteen waxaan leenahay cillado. Qaadashada xaqiiqadan keliya kama dhigi doonto inaad naftaada ku faraxsan tahay, laakiin sidoo kale waxay kaa caawin doontaa inaad aqbasho naftaada iyo tan dadka kaleba sida ay yihiin. 4. U naxariiso kuwa kale. Tani waa mid ka mid ah dhaqamada ugu badan ee ay ku dhaqmaan dadka faraxsan. Inaad wax u qabato dadka kale iyo ficilada yar yar ee naxariistu waxay ku siiyaan dareen farxadeed. Waxaa jira saamayn dhab ah oo ku saabsan farxadda marka ay timaado naxariista dadka kale. Naxariistu maaha keliya in lacag sadaqad aad ku bixiso, ee waxaa jira waxyaabo badan sida ku deeqidda wakhtigaaga, tamartaada iyo khibraddaada si ay uga faa'iidaystaan dadka kale. Iyada oo ay weheliso kor u qaadista farxadda, waxay gacan ka geysan kartaa xoojinta xidhiidhka bulshada iyo caafimaadka naftaada. 5. Yeelo ujeeddooyin iyo hadaf macno leh. U fiirso qaar ka mid ah dadka farxadda badan ee aad taqaanid. Waa dad ku nool nolol deggan oo hadaf iyo firfircooni leh. Sidoo kale waxay wataan mar walba qorshayaal waaweyn iyo fikrado cusub. Si kale haddii loo dhigo, waxay leeyihiin yoolal iyo ujeeddooyin micno leh. Hadafyadu waxay ku siinayaan ujeedo, macne, dareen xamaasadeed, iyo sababo aad u kacdo subax walba adigoo faraxsan. Sidaa darteed horay u soco, u deji naftaada yoolal iyo ujeeddooyin micno leh, oo bilow inaad ka shaqayso iyaga si aad u noqoto qof deggan oo noloshiisa ku faraxsan mar walba. 6. Iska daa cadhada iyo cuqdada. Cafiska iyo is-ilowsiinta ayaa lagama maarmaan u ah farxadda. Cuqdadu keliya waxay keentaa xanaaq iyo calool xumo. Sidoo kale waxay lid ku tahay ooy ka hortagtaa farxadda. In aad awoodi weydo inaad cafiso dadka kale ayaa kaaga dhib badan waxa ay dadka kale kuu geysteen, maxaa yeelay cafisku wuxuu ku siiyaa xasilooni iyo dareen farxadeed. Waxaad u baahan tahay inaad barato inaad cafiso naftaada, dadka kale, iyo inaad iska dayso dareemada xunxun sida cadhada, nacaybka, cadaawadda, murugada, aargoosiga, ciilka iyo wixii kale la mid ah.
marka xigta ay wax qaldamaan halkii aad ka fikiri lahayd waxa dhacay iyo sida aad dareemayso ka baro cashar oo horay uga soco adigoo ka talinaya farxadda noloshaada. 7. Ku xidhnow bulshada. Xidhiidhka bulsheed ee aad leedahay noloshaada ayaa qayb weyn ka qaata farxadaada. Uma jeedo asxaabta khayaaliga ah ee baraha bulshada laakiin waa xiriirka dhabta ah ee aad la leedahay dadka dhabta ah ee kugu xeeran haba yaraadaane. Haddii aad rabto inaad faraxsanaato ku hareeraysnow dadka faraxsan. Sidoo kalena isku day inaad farxad geliso kuwa kugu xeeran oo kobci xiriirka wanaagsan ee aad la leedahay dadka kugu xeeran oo waqti u sameeya asxaabta iyo qoyska. 8. Lacag ku bixi khibradaha iyo waayo aragnimada waxyaabaha aad ka helayso. Maxaa ku farxad geliya? Hadiyad qaali ah ama safar dalxiis oo xiiso leh ood la gasho dadka aad jeceshahay. Si kastaba ha ahaatee, waayo aragnimada ayaa ah waxaa mar walba maskaxdaada iyo xusuustaada ku jiri doonta ma aha waxyaabaha aad haysato. Sidaa darteed qiimee iyaga sababtoo ah waxay aad ugu dhow yihiin inay u horseedaan farxad marka loo eego hantida iyo waxyaabaha aad haysato. Markaa xoogaa lacag ah ku bixi haddii aad awooddo waayo aragnimada waxyaabaha aad ka helayso. Ha noqoto fasax aad la baxdo qoyskaaga ama asxaabtaada. Inaad booqato madxafka deegaanka. Inaad u safarto meel aad mar walba rabtay inaad tagto iyo waxyaabo badan oo kale oo naftaada xasilooni iyo farxad geliya. 9. Xadid dhegaysiga ama daawashada wararka. Weligaa ma u fiirsatay markaad dhegaysato ama daawato ama aad akhrido warka, had iyo jeer waa dhacdooyin iyo sheekooyin xunxun waxay ka waramaan. Dareen noocee ah ayay ku dareensiiyaan wararku? Ma aha mid aad u faraxsan ama yididiilo leh, sax? Daawashada warku waa hab sugan oo lagu dareemo farxad la'aan, murugo iyo rajo xumo. Dhab ahaantii daraasado badan ayaa hadda caddaynaya saamaynta xun ee warku ku leeyahay maskaxdeena. Warku waa cad yahay haddii aad danaynayso farxaddaada iyo wanaaggaaga, xakamee isticmaalkaaga wararka. 10. Caafimaadkaaga ka dhig mudnaanta koowaad. Xaaladdeena guud ee caafimaadku waa saadaal wanaagsan oo muujinaysa farxaddeena. Si kastaba ha ahaatee, caadi ahaan ma garanayno doorka uu caafimaadkayagu ku leeyahay farxaddeena. Sababtoo ah ma danayno caafimaadkeena marka arrimuhu caadi yihiin. Laakiin isla markaad xanuunsato waxay isla markiiba saamaynaysaa habdhaqankaaga, niyadaada, dareenkaaga iyo aragtidaada. Laga bilaabo madax xanuun fudud, xanuun joogto ah ama arrimo kale oo caafimaad. Haddii aad rabto inaad noqoto qof faraxsan, waxaad u baahan tahay inaad daryeesho caafimaadkaaga. Hurdo kugu filan oo aad hesho waxay soo celinaysaa hawlihii muhiimka ahaa ee jidhkaaga. Cunista cunto nafaqo leh waxay ilaalisaa jidhkaaga iyo maskaxdaada inay shaqeeyaan. Jimicsi jireed oo joogto ah ayaa ilaalinaya qaab dhismeedka jidhkaaga. Marka adiga maxaa ku farxad geliya? Qaybta kommeentigana gula wadaag. Haddii aad ka heshay muuqaalkan, fadlan subscribe noo saar channelka si aad u hesho muuqaalo noocan oo kale ah oo la wadaag asxaabtaada. Mahadsanid.